wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta ee gobolka Awdal waxay ka mid ahayd wasaaradaha muddooyinka ugu dambeeyay ka tisqaaday gobolka Awdal iyadoo labadii cisho ugu dambeeyay gabi ahaanba albaabada loo laabay wasaaraddaasi kadib markay awoodi waayeen inay iska bixiyaan kiradii guriga ay ku jireen kumaysan eekeen wasaaradda oo kaliya waxa ku lamaanaa xarunta TV-ga qaranka iyo waliba radio Hargeysa oo ah iyagu telefishinka iyo idaacadda ku hadasha afka qaranka Somaliland iyadoo horey u furay wasiirkii hore wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta mudane Cabdilaahi Maxamed Daahir Cuguse iyo maareeyihii TV-ga qaranka ee waqtigaasi imikana mid ka mid ah la taliyayaasha madaxweynaha Khadar Cali Gaas halka waqti xaadirkan marka albaabada loo soo laabay uu wasaaradani maamulo wasiirka wasaaraddaasi Ismaan Saxardiid Cabdilaahi Cadaani iyo waliba maareeyaha TV-ga qaranka Cabdi Cali Mahdi iyadoo labadaasi maalmood ay wasaaraddu xidhan tahay aysan mas'uuliyiinta heer gobol iyo waliba wariyaasha gobolku aysan haysan goob ay ku sameystaan warka halka ay marti u yihiin telefishinada madaxa bannaan iyo waliba shakhsiyaadka sida gaarka ah ugu shaqeeya ilaha warbaahineed ee madaxa bannaan waana fadeexad dul hoganaysa wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta isuduwaha wasaaraddaasi Abubakar Xasan Caafi sida loo og yahay waa shakhsi aan awoodin sida loo og yahay inuu u kireeyo dhismo ama guri ku filan wasaaraddaasi iyo waliba wariyaashooda haddayba se awoodi weyday wasaaraddii warfaafinta qaranka ee heer qaran tani ayaa barkumataal xanuuna ku ah mas'uuliyiinta wasaaraddaasi balse uma eka maareeyaha TV-ga qaranka iyo wasiirkaasi kuwo waceeb iyo sharaf xumo kala kulmay gabi ahaanba wasaaraddii iyo qaabkii ay u shaqaynaysay lamana oga arrintani halka ay saldhigan doonto iyadoo ay wasaaradaha kala duwan ee gobolka Awdal maalmihii ugu dambeeyay ay ahaayeen kuwa kor u soo kobcay badanaana ahaa kuwa ku jiray dhismayaal ay si khaas ah u leeyihiin halka kuwa aan lahayn ay ahaayeen kuwa imika u socday dhismayaal ay leeyihiin wasaaraddaasi iyadoo miisaaniya sanadeedka 2016 ee wasaaradda warfaafinta uu ku jiro dhismo cusub ay yeelan doonto wasaaraddaas ilaa hirgeliyo 6 bilood ee hore ayaa ilaa imika aan laga bahayn wasiirka iyo maareeyaha TV-ga iyo waliba mas'uuliyiinta wasaaraddaasi wax ballan qaada ama dhismo wasaaradeed oo yeelanayso wasaaradani waana ta keentay inay maanta la baaxaadagaan ama se la wareegaan warkii loo dirayay TV-ga qaranka iyo waliba idaacadda qaranka oo ku hadla afka qaranka Somaliland iyadoo mar kale ay ku caddahay inay ku fashilmeen wasiirka iyo waliba mas'uuliyiinta wasaaraddaasi siiba maareeyaha TV-ga qaranka ee waqti xaadirkan Cabdi Cali Mahdi oo marka la barbar dhigo mas'uulkii ugu horeeyay jagadaasi dhanka kale marka la isbarbar dhigo labadii wasiir ee soo maray wasiirka hore ee wasaaraddan iyo waliba wasiirka haatan xukuma ay iyagu dhankooda yihiin kaaf iyo kala dheeri kudarso waqtiyadii ugu dambeeyay wasiir Ismaan Saxardiid Cadaani waxa uu ahaa mas'uul soo shaqaaleysiiyay wariyaal tiro badan waana ta mugdi gelisay in gabi ahaanba goobta laga waayo wasaaraddii warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta ee heer gobol jaamacadda Space Journal Borama